Alaabtan ciida ka hor ku dhaq lugaha iyo gacmaha oo ku qurxiso waa alaab cajiib ah oo gacmaha iyo lugaha daalka, khayraada, madowga, mugdiga, wasakhda ayay ka dejinaysaa. Gacmaha iyo lugahana way cadeynaysaa, dhalay ka dhigaysaa, way qurxinaysaa. Sidoo kale way jilcinaysaa. Hadda lagama sheekeyn karo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta ku xiran channelkeena Najax soo dhawaada walaalahayga. Meel walba aad joogtiin dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax oo barateen waxyaabaha dabiiciga oo la isku qurxiyo oo walaashin hadinaysid 10 kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada sida title-ka video ku soo aragteen qaybta ugu horeysa video ku soo daawateen wixii hadala hadda qaybta ugu horeysa muuqaalka ayaan ku soo koob walaalahayga marka hadalka iyo warka inuu kugu badinaayo alaabtan dheelitiranka oo lagu dayactirayo lugaha iyo gacmaha ayaan hadda maanta ka soo tuuranayna waxyaabo inuu ka hagaajisanayno igala bogtaada video soo socdo marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo alaabta aan ku qasano ayaan soo qaatay sidoo kale marka koowaad waxaad u baahan tahay cusbo ayaa u baahan tahay qaanda hafkeeda cusbo ayaa waxaan ku shubay weelkii yaraa oo inoo diyaarsanaa waa cusbadeena caadiga ahayd oo shiidneed sidoo kale waxaad kale u baahan tahay haruud ayaa u baahan tahay qaanda haf oo haruuda ayaan ku daray cusbadeena weelka inoogu jiray shayga saddexaad u baahan tahay waxa waaye waa baking powder waaye waa baking powder burka lagu darsanayay baking powder ayaa u baahan tahay baking powder-hana waa kaasa meel kasta ayaa lagu gadaa dukaamanka waa lagu gadaa supermarket-ka waa lagu gadaa baking powder waxa waaye jirka wuu nadiifiyaa wuu dhaqaa wasakhda ayuu ka dejiyaa caadi maana jirkana wuu cadeynaa meeshii lagu taabto waytin natural ayuu siinayaa waxaan kale aan ku darayo waxa waaye waa shampoo waaye ayuu shampoo ahaysatid ayaad isticmaalaysaa insha Allah aniga noocaas ayaan isticmaalaya waxaan kale ku darayaa rose water gel ayaan ku darayaa hadaarti biyaha ubaxa oo kaligood waa isticmaali kartaa alaabtan waxa waa biyihii ubaxa oo gel ah waaye lagama sheekeyn kara alaabtan hadda maasha Allah jirka jileec dhalaal qurux iftiin ayay ka dhigaysaa aniga tijaabiye insha Allah wax kasto aniga aan ku faa'iido waa inay soo bandhigaa ka faa'iideysta meel walba lagu gadaa meelaha shopping-ka ayaad ka helaysiin rose water gel ayaa la dhahaa alaabtan biyihii ubaxa oo gel ah waaye biyaha ubaxa kaligood ahna waa isticmaali kartaa insha Allah hadda alaabtan heli kartidna isticmaal hadda alaabtii intii aan isku soo dardarsan ayaan isku qasayaa oo aan isdhexgelinayaa alaabtii wax biyaha hadda alaabtan kuma daran waa intii aan isku soo dardarsanay oo kaliya ayaan isku qasay alaabtii markaan isku soo qasay oo aan si fiican isku soo dhexgeliyay ugu dambeyntii alaabtii sidaas quruxda badan ayay inoogu soo baxday haatan waa inoo diyaar kaliya waxay u baahan tahay in la isticmaalo oo jag la isku siiyo marka sidee u isticmaalaysaa marka hore waxaad sameynaysaa gacmaha iyo lugaha ayaad iska soo dhaqaysaa oo iska soo nadiifinaysaa kadibna hadda alaabtaada ayaad marsanaysaa lugaha iyo gacmaha 15 daqiiqo 20 daqiiqo intii ajaanis ay heli kartid ayaad ku joogaysaa kadibna waad iska meeraysaa maasha Allah hadda marka koowaad ay isticmaashid ayaa alaabtan resultigeeda helaysaa hadal iyo ma karta waaye ma fahanteen insha Allah idinkana waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin oo soo tijaabi doontiin alaabta aniga ayaa tijaabiya maasha Allah waa alaab laga warrami karin lugahaaga iyo gacmahaaga quruxdooda dhalaalkooda shacnigooda hadda waa ka yaabi doontaa waa marka koowaad oo kaliya isticmaashid maxaa u maleynaysaa hadda maalmaha ciida ka xiga haddii aad 2 mar ama 3 mar oo kaliya amarsatid yaa maalinka ciida waxa gacmahaaga iyo lugahaaga quruxdooda waa laga yaabi doonaa insha Allah marka ka faa'iideysta oo soo tijaabiya waxyaabaha naturalka ama dabiiciga jirka waxa uga fiican ma jirto waxa waa jirkaaga damoor ah waxyaabaha dabiiciga ah isticmaashid waxa waa damoor oo jirkaaga si qurux badnaanayo alaabtan lugaha iyo gacmaha sidoo kale way jilcinaysaa soft ayay ka dhigaysaa baby kaala iska arag hadda lagama sheekeyn karo lugaha iyo gacmaha baby-ga camal ayay ka dhigaysaa jileec qurux badan oo dhalaalayo maxaa ka fiican hadda scrub gacmihii lugihii ku dhaqaayo oo ku cadeynayo balas ku jilcinayo wax la heli kara maan waa alaabo yar yar oo fudud oo haddana gurigaaga ka heli kartid marka insha Allah waxaan rajeynayaa hableeyga quruxda badan dhammaantiin video-ga inaad ku faa'iidi doontaan insha Allah muuqaalkeeni maanta intaas ayaan ku soo afmeerayaa waa inoo kulanta dambe oo xiiso leh yaanigooni sidoo video kale cusub walaalahayga video-gana si ay walaalo badan uga faa'iideystaan channelka haddii aad ku cusubtaana soo dhawo minanka waa channelka inoo subscribe garee haddii aad noola joogtaan waa ku mahadsantahay mar walba sida quruxda badan ay noola joogtid